maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa maanta muddo 5 sano oo xadhig ciqaabeed waxay ku xukuntay Cabdimanaan Yuusuf mulkiilaha telefishinka Astaan TV sidoo kale waxay xayirtay telefishinkaasi iyo waliba 2 milyan oo ganaaxa oo shilinka Soomaaliland gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuta waxa uu cambaareeyay xadhigaasi oo uu sharci darro ku tilmaamay waxaana uu sheegay in garyaqaanada u doodaya Cabdimanaan ay rafcaan ka qaateen xukunkaasi saad la socoteen xukuumadda Soomaaliland waxay xidhay mulkiilihii telefishinka Astaan TV Cabdimanaan kaasoo muddadaas 3 bilood imika ay xidhnaa dacwadiisuna ay socotay dacwadaas maraaxil kala duwan bay soo martay runtii oo ahayd inay sida sharciga ah inay eedayn iyo difaac maanta ay noqotay maantii kama dambaystayd garsoorihii dacwadaasi gacanta ku hayay runtii uu soo saaro go'aan ku saabsan kiiska mulkiilaha telefishinkaasi iyo Astaan TV urur ahaan wixii awoodeeda ah ee difaaca runtii muddadaasi si xilkasnimo leh ayay u guteen looyaradii dacwadaasi gacanta ku hayay oo ahaa 3 looyar 2 nin iyo gabadh sharci yaqaan ujeedada aanu markaa ugu talagalnay waxa runtii in aanu dacwadaasi si adag uga difaacno Cabdimanaan waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa in ehelada Cabdimanaan oo dalka iyaduna qariib ku ahaa oo muddadaasi 3 sano ah dhageysiga dacwadaasi runtii si kal iyo laaba uga qayb galiyay iyo dadka kale runtii wariyaal ahaa iyo mas'uuliyiin kalaba ee daneynaya dacwadaasi si xaqiiqadeeda loo ogaado maanta go'aanka ka soo baxay maxkamadda gobolka Maroodijeex urur ahaan runtii waxay nagu noqotay mid fajacis ah ama runtii mid aan la filanaynin waxaan saa u leeyahay runtii muddadaasi dacwadaasi socotay waxa aanu soo bandhignay wax kasta oo xaqiiqo ah oo ku saleysnaa in aanu qabin Cabdimanaan iyo telefishinkaas eedaha loo soo jeedinayo muddo 6 sano ah baan nimanka maxkamadaasi joogtaa u joognay wali dacwad lagu dhawaaqo nooceeda tii koowaad bay ahayd maanta qaabka loogu dhawaaqay oo runtii ah Cabdimanaan waxa lagu eedeynayay 3 eedood oo ay ta koowaad ahayd in uu hawlo basaasnimo ah ee Soomaaliland ka waday talabaadna waxa ahayd in uu sifo sharci darro ah telefishinkiisu dalka kaga shaqeynayay iyo ta saddexaad ahayd in uu sifo sharci darro ah dalka ku soo galay waxay ahayd sida caadada ah qodobadaasi in garsooraha dacwadda gacanta ku hayay uu sababeeyo marka xukunka maanta uu soo saaray mid walba waxyaabaha uu kaga helay ama waxyaabaha uu u cuskaday qodobadaasi uu ku xukumay waxa uu ku xukumay 5 sano oo xariga waxa uu ku xukumay in telefishinka la xayiro sidoo kalena waxa uu ku xukumay 2 milyan oo shilin Soomaaliland oo ganaax ma kala cadda ama waxaan u aragnaa in muhimal weyn ku jiro maadaama oo qodobadaasi lagu eedeynayay 2 milyan oo shilin Soomaaliland ma garanayna sababta maanta maxkamaddu u cadeyn weyday 3 qodob mid walba wax ka gaashay waayo maadaama basaasnimo ku eedeynaysa xukuumaddu waxaanu ka filaynaa garsoorku inuu yiraahdo eedaasi basaasnimada ah waa lagu helay qodobka caynka iyo caynkaas aan kaga xukunay sidoo kale sharci darrada telefishinkaas ku shaqeynayay waanu ku helay sida ay saasaan ku xukunay sharci darrada socdaalka ee lagu eedeeyay waanu ku helay intaasaan kaga xukunay waxa maanta ka dhacday maxkamadda gobolka in uu garsoorihii kiiska gacanta ku hayay runtii si duuduuba xukunadaas u soo saaray isagoo aan kala cadeynin isagoo aan mid walba wuxuu kaga helay dambi aan u food saarin runtii maadaama ay taasi dhacdo waxaan u aragnaa uruhan arrin sharci darro ah arrin aan Cabdimanaan mutaysan arrin telefishinkaasi runtii loogu talagalay sidii dad badan inta badan qabeenba in albaabada loogu laabo ganacsiga ninkaasi in ay ahayd maanta talaabada ay garsoorku qaadeen
أنا حنا أفليني ما دام دعوة داسي تشوفني مدة أي سعوتها إن أي حد إلا أبال مريو هي أده كل شغلة لا أرمهاس هدينا قطو رخصات لأنت ورنتي أنا أرنا وسعر ورفيت السومال لأن يحفظ كحير العلنتو صفة قلدن أما صفة نظام درتي وقولي دتيه إن أي أصميان أما أوتك فلان أود يجوا بال مري حركة صعبة waxa aanu horgeynay maxkamadda in Cabdimanaan iyo telefishinka astaan sifo sharciya marka horena ay ku qaateen hay'adaha sharcigaana ay mareen haday noqoto hay'adda telecommunicationka iyo haday noqoto wasaaradda ganacsiga iyo haday noqoto wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale xeer ilaalinta oo markii ugu dambeysay maalintii la xidhayay u soo saartay ruqsadda in mulkiilaha Cabdimanaan telefishinkaasi sifo sharciya ay ugu diiwaan gelisay waxaan u arkaynay istaba-marin iyo isla socod la'aan hay'adaha dawladda ee arrimaha saxaafadda khuseeya ay horeba u sameyn jireen in nidaamka telefishinka ruqsadda loo siiyay nidaamka lagu eedeeyaba ay ahaayeen kuwa sharci darra xeerka saxaafaddu wuxuu si toos ah u cadeynaya qodobkiisa 7 haddii lagu helay ama warbaahin lagu soo saaray sifo sharci darra ama iyadoo ruqsad haysan la soo saaro waxa ay mutaysanaysaa in la xayiro ilaa ay inta ay ka soo qaadanayso ruqsaddii ama ka soo dhamaysanayso qodobkaas Cabdimanaan mu mutaysan waayo sifo sharciya bay xeer ilaalintu ku siisay maadaama sifo sharciya ku siisay qodobadan imika lagu xukumay ma kala saari karayno nooc ay yihiin maadaama aanu garsoorihii si toos ah u sheegin ruqsad la'aanta in damiga inta lagaga xukumay waayo xeerkii saxaafadda cadeynaya marka qof sifo sharci darra xataa lagu helo anagoo ogsoon anagoo عدينا إن مدة أو شغلنا نظام شرعي وكل شغل سنة إن هذا لما أنت سموه ملا الله حكمه قضب عن عدين إن سواء كان لا أنت السعودال أما يعني immigration وحنو فيليني عديمه هالك رنتي لقي يو يعني دوكمنت كي أنا صوب عندنا وحيابيه قلادات كدعي إن أي هيد إن لقوا أول مريو رنتي سراكيشة لا أنت السعودال هسه شيء إن ما أنت التلفزيون كا يورباهنت نبرك الله صار الدمي أنا الحين يو نكاسي telefishinka ale mulkiilaha ah in maanta loo saaro sifo sharci darra buu dalka ku yimid anagoo dokumentkii horgeynay garsoorka in maanta eed aan cadeyn oo muhmala oo qarsoon oo qodobkii ay mutaysatay aan la saarin in maanta ay ku dhawaaqdo maxkamaddu ugu dambeyntii waxaan runtii aad u cadeynaynaa oo aan u aragnaa in garsoorka maanta xukunka 5 sano ku xukumay sabab uu ugu cuskaday aan jirin oo aanu aragn in lagaga meereysanayo eedii basaasnimada ahayd oo wax cadeyna ninka aan loo keenin in maanta xukunka 5 sano ah ee meel uu ku cad yahay qodobka loo cuskaday aanu jirin in lagaga gabanay baan u aragnaa haddii kale waxa garsoorka ay ahayd inuu cadeeyo in qodobka basaasnimada lagu helay xukunka inta leegna runtii aanay uu kaga waajibay qareenadii Cabdimanaan maanta markii xukunkaas lagu dhawaaqay fajicida runtii aan aqli galka ahayn runtii aan u aragna xukun ninkaasi lagu dulmiyay hantidiisa iyo sharciyadu haystayba in aan ka qaadanay rafcaan oo aanu nidaamka sharciga ee cadaaladda dalka aanan ka quusan doonin boroseskiisa aanu dhamaysan doono ilaahayna aan ka rajeynaa runtii in wixii dulmiya ama wixii cadaalad darre halka ka dhacay aanu tirsanayno ah in lagu qaaday telefishinkaas iyo mulkiilihiiba runtii aanu ka heli doono abaalmarinteeda isla markaana ka codsan doono ama aanu ugu baaqayno jaranjarada kale ee garsoorka ee rafcaanka in ay arintaasi dib u eegto oo sharci darrada aanu maanta arkayno runtii ay cadeyso oo ay bayaamiso marka ay dacwadaasi haddii la yiraahdo gudagasho